wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nolosha in every aspect qayb kasta oo nolosha ka mida qofku guulaystay. sida awgeed bay cidhiidhi noqon doontaa inaynu isku dayno hal muxaadaro inaynu kaga warranno, laakiin biidni illaahi tacaala waxaynu isku dayi doonnaa inaynu muqhtatafaad kooban oo macaalimtii loo xadiday deriska kan ka mida aynu tilmaamno oo ku saabsan dhalashadiisii, murdaca ciddii naas nuujisay, meeshuu ku koray, qaabkuu u koray, haweenkuu guursaday, iyo waxoogaa ka mida maraaxilu dacwati. ugu horrayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar, warabbuka yakhluq maa yashaa wayakhtaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuraa wuxuu doono, isagaana doorashada leh. walidaalika nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ilaahay baa abuuray, doortayna. allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah. ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa og xaysu yajcalu risaalatah, meesha uu dhigayo risaaladiisa ama cidda uu rasuul u dooranayo, muwasafaadka ay leedahay iyo wuxuu ku dooranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa yaqaana. walidaalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamaya xadiidka bukhaari ku sugan: ina allaha اصطafaa kinaana min walad ismaaciil واصطafaa quraysha min kinaana واصطafaa min quraysha bani haashim واصطafaanii min bani haashim. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay ilaahay qabiilka kinaana la ydhaahdo ayuu ka doortay nebi ismaaciil intuu dhalay. kinaanana quraysh buu ka sii doortay, intay kinaana ka koobnaydna quraysh baa alla ka sii doortay. qurayshna reer bani haashim baa alla ka sii doortay, reer bani haashimna anuu iga doortay buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. idan tafiirtiisa iyo cidduu ka tirsanaanaya iyo qabiilkiisa ilaahay baa u dooray subxaanahu wa tacaala. zamanka iyo meesha uu ku soo baxayana ilaahay baa u dooray, sida xadiidkii bukhaari uu leeyahay: bucistu min khayri quruuni bani aadama qarnan faqarna xataa kuntu min alqarni aladii kuntu fiih. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala quruuntii reer nebi aadam uu soo maray ee kala gedisnayd ee asminada ahaydna zamankii ugu fiicnaa baa alle subxaanahu wa tacaala ka doortay. idan wuxuu ahaa duu nasab, sida xadiidkii kale bukhaariye hiraqal markuu waraysanaya abu sufyaan uu tilmaamayay. wuxuu ahaa mid reerkooda la doortay, isagana laga sii dhex doortay. wuxuu ahaa mid zamankiisa la doortay, zamankii uu joogayna wakhtiyada kale ilaahay uu ka doortay subxaanahu wa tacaala. wuxuu ahaa meeshu ku dhashee ka soo baxay mid la doortay oo maka ah, oo ilaahay beledkiisa meeshuu ugu jeceliyay sa axaadiidta kale nebiga ku sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. sidaynu wada naqaano magaciisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa la odhan jiray moxamed ibnu cabdallah ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu lu'ay ibnu haalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudraka ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nazaar ibnu macad ibnu cadnaan. intaa abtirsiinta aan sheegay ahlu taariikh way isku waafaqsan yihin. cadnaan iyo ismaaciil inuu min walad ismaaciil ahaana cidi kama muransana. inta u dhaxaysa taariikhyahanadu weedho kala gedisan bay tilmaamaan. ismaaciil inuu ina ibraahim ahaana waa la yaqaanaa. ibraahim iyo aadam inta u dhaxaysana taarikhyahanadu waxyaabo kala gedisan bay tilmaamaan. idan ilaa iyo qabiilka cadnaan la yidhaahdo ee carbeed inuu ku abtirsado, cadnaanna inuu waladu ismaaciil ka mid yahay iyana waa la hubaa, oo uu ku abtirsado nebi ismaaciil oo ina ibraahima. wixii ka dambeeyana ibraahim
inuu soo socdo aadam gala waa la hubaa laakiin labada aynood inta ka dhaxaysa taariikhyahanadu ma sugaan yacni si cad loo garan maayo waa un inuu reer cadnaan ahaa dabeetana uu quraysh ka mid ahaa quraysh yaa la odhan jiray taarikhyahanada badh waxay idhaahdaan annadar ibnu kinaana kinaanada tan qabiil ka tirsanoo nadar la yidhaahdo ayaa quraysh la odhan jiray taarikhyahanada qaarna waxay idhahdaan maya nadar maahe waa inanku awowga u ahaa oo waa fihr ibnu malik ibnu nadar waa fihirka bay leeyihin ka ah quraysh ka dambaanay u badan yihiin taarikhyahanadu quraysh inay fihirka yihiin nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi abtirsiintiisa loo yaqaanee la garanaya waa taa hooyadiina iyana waa quraysh waa aamina bintu wahab ibnu cabdimunaaf ibnu zuhra ibnu kilaab ibnu mura ibnu lu'ay ibnu haalib lu'ay ibnu haalib bay ka soo gashaa iyana waa kilaab ibnu mura ibnu lu'ay ibnu lghaalib ayaydiisa xataa ka sii horaysa waa bara bintu cabdilcuza ibnu cuhmaan ibnu cabdidaar ibnu qusay dhammaantood maca ayayooyinkii waa quraysh ayaydiisan marka la eego kaasi waa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi magaciisii iyo abtirsiintiisii wixii laga hayay goorta uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa waxyigu sugayaa inay isniin ahayd oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaadiista ka asaxday wuxuu ku tilmaamayaa inuu isniin dhashay waxaana ibnu qayim uu leeyahay waxay isku wada waafaqsan yihiin nimanka taariikhda qoraa inuu maka gudaheeda ku dhashay sanadka caamulfiilka la yidhaahdana inuu dhashay taariikhdii hore carbeed waxay la mid tahay taariikh kastoo dad umiyona aan wax qorin waa sida taariikhaha soomaaliyeed oo kale gugii waxaasi dhacay dayrtii waxaasi dhacday gugii saa la noqday waagii barwaaqada ahaa dayrtii hebel la dilay waxyaabahay soomaalidu taariikhda ku tirsan jirtay oo kale abaaraha iyo guyaasha iyo wixii lamida dhacdooyinka inkastoo taariikhda bini aadamku sideedaba dee dhacdo un lagu tiriyo dhacdooyinka ka mid a xataa tan miilaadiga aynu hayna dee miilaadu ciisa bay leeyihin baa laga bilaabay dhacdaa lagu tiriyey laakiin taariikhdan carbeed inta la garanayo waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii caanka carabka ahayd ee ahaa caamulfiilka sanadkii loo yaqaanay inuu nebigu dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sanadkii maroodiga alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil sanadka maroodiguna waa ka alla qur-aanka kaga warramayo asxaabulfiilka waa sanad aynu naqaano in niman xabashii kacbada ay ku soo weerareen maroodiyaal saa taariikhdu dhigto taariikhda kale bini aadamka ee iminka la tiriyo sanadkaasi xaguu ku beegnaa qaar waxay dhahaan 570 qaarna 571kiibuu ku beegnaa bishuu uu dhashay teebay ahayd taariikhyahanadu waxay sheegaan inay ahayd rabiic alawal rabiic alawal isniintaasi xaggay kaga dhacaysay uu nebigu dhashay aqwaal baa la soo arooriyaa labadeeda sideedda aqwaal baa la soo arooriyaa uu ugu mashhuursan yahay ama se ugu caansan yahay qowlka sheegaya 12kii rabiic alawal inay ahayd laakiin bidabt maaha masaa'il isku waafaqsan yahay kuwaasoo dhamme waa masaa'il culamaa'i taariikh aaraa kala gadisan ay ka tilmaamaan laakiin sida mashhuurkaa sida caanbaxday waa inuu 12kii rabiic alawal dhashay taariikhda miilaadiga abril sida wadaadkii maxmuud baashi alfalaki uu ku tilmaamaya abril 571kii abril xaggee buu ka dhashay isagoo abril 20keeda 22nadeeda meelahaasoo tilmaamaya rag kalena maalmo kaley tilmaamayaan waayo isagoo abril 20keeda iyo 22nadeeda waxau ku salaynayaa isniin 9kii rabiicul awal ku dhacaysa sida uu isagu sheeganayo calaa kulli xaal nebigu inuu isniin dhashay iyada waa la hubaa inay ahayd caamulfiilla taariikhyahanadu way isku waafaqsan yihiin intaa wixii ka dambeeya waa masaa'il culamaa'i taariikh siyaabo kala gedisan ay u tilmaamaan markii uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa naas nuujiyey huwayba gabadhii la odhan jiray
mawlaadka u ahayd uu abilahab uu lahaa ayaa naas nuujisay waana ka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari ku tilmaamaya inay huwaybi naas nuujisay ardacatnii wa aba salama huwayba buu nebigu yidhi aniga iyo aba salama saxaabigii la odhan jirayba waxaana naas nuujisay buu nebigu yidhi huwayba huwaybi waxay kaloo naas nuujisay xamza ibnu cabdilmuطalib oo nebiga adeerkiiya oo waa ka xadiidka kale bukhaari nebigu ku tilmaamaya markii la yidhi inantiisa guurso laa taxilu lii iima bannaana waayo yaxrum min alradaaca maa yaxrumu min annasab hiya ibnatu akhi fi اridaaca